Cashirka afartanaad ee C Programming Language-ka wuxuu nooga bilaaban doonaa hadduu alla idmo function call. Waxaan ku dhex jirnaa functionska oo aan qaybihii ugu dambeeyay typeskooda soo dhameynay. Weliba qaybihii ugu muhiimsan ayaan dhex marinaa oo maanta function calling-ka ayaan guda galaynaa. Function call-ka waxaan ognahay functionka inay ka kooban tahay saddex qaybood markii la dhisaayo user defined functionka. Horena usoo sheegnay waa function prototype ama function declaration iyo function calling iyo function definition. Function calling-ka waxa ay qabataa shaqada ah in ay u wacdo functionka shaqada qabanaya ama operationka sameynaya, markaas ka bacdina wixii information ah ay u gudbiso asagana uu process gareeyo. Function calling marka aad sameynaysid laba qaybood ayay noqotaa in loo sameeyo functionska. Sidaan ognahay function call-ka waxa ay qaadataa arguments ayaa loo gudbiyaa. Functionka argumentska loo gudbinayo waxay u gudbisaa iyadana function definition-ka. Laba way ayay waxay ugu gudbisaa marka function definition-ka. Midka koowaad waxaa la dhahaa call by value. Midka labaadna waxaa la dhahaa call by reference. Call by value wax kale ma ahan waxa ay tahay oo maanta waxaan sharxi doonaa waa call by value. Call by reference-na cashirka xigeen ku sharxi doonaa. Call by value waxaa la dhahaa in function calling-ka la sameeyo ayadoo la isticmaalayo value copy lagu sameynayo functionka. Value-gii function calling-ka ay function definition-ka copy ku sameyso, markaas ka bacdina ay process gareyso, ka bacdina ay return u sameyso. Laakiin cilad ay leedahay ayaa jiri doonta. Waxaan qoraynaa marka hore programka call by value. Marka programka qorno ayaan uga hadlaynaa. Marka programka aan qoraynana waxaan kusoo qaadanaynaa oo function aan ku sameynaynaa markii laba tiro swapping lagu sameynayo ama la isku bedelayo. Waxaan qaadanaynaa waxaan isticmaalaynaa code block. Functionka waxaan u qaadanaynaa return time-ka integer. Magaca functionkan waa swap. Waxaan siinaynaa integer. Tusaale waxaan qaadanaynaa ama integer iska soo dhehe hadhowti aad qaadan kartaa variable-ka marka function definition declaration sameynaysid. Intan waxaan leenahay int a, b kala ma baanin. Print waxaan leenahay enter geli the values, qiimaha geli, semicolon, printf-ta scanf-ka bacdi qiimihii waxay ka qaadanaya userka percentile d, ampersand a, ampersand b. Markan waxaan sameynaynaa function calling-ka. Sida loo sameynaa magaca functionka oo la soo qaata ka bacdina la gudbiya argumentskii oo ay u baahneed parameterskeeda ay qaadato oo ah a iyo b. Marka functionka waxay gudbinay qiimaha a iyo b oo aad soo siisay. Waxaan leenahay inta return 0. Mainkay u celinay. Mainkan waa isoo xirmay marna hoos inay laga soo xirmatay. Okay. Intaan waxaan ku xirmay mainka. Function calling-ka ayaa la sameeyay oo ah swap a and b. Waxaan ku xijinaynaa marka function definition-ka oo idina sidii function declaration-ka camal noqonaysa. Swap marka la soo qaato integer marka inta waxaan qaadanaynaa variable-ki marka iyo y. Sorry, waa semicolon ma qaadato. Waxaan leenahay marka variable waxaan sameysanaynaa tusaale ahaan oo ka dheeraad ah z aan qaadano si swap aan u sameyno. Waxaan leenahay qiimihii z waxay la mid tahay x la mid tahay, x waxay la mid tahay y, y-na waxay la mid tahay z. Return waxaan leenahay waxaa celisaa x iyo y celi. Bal aan aragno programka intaan sameynin aan kasoo hadalno programka siduu u dhacayo. Printf ma qorayno, labada meelba meelaa ku qori doona hadduu alidmo. Waxaan functionkan ku sameynaynaa swapping. Swapping macnaheedu wax kale maahan laba tiro oo waxa waa la isku bedelayo. Programka waxaa la rabaa haddii aan gelino tusaale 10 iyo 20, 10 aan hormarino 20 aan ku xijino in marka uu noo soo daabacayo uu soo daabaco 20 iyo 10 uu kala hormariyo. Declaration-ka functionka
integer iyo waxaan qaadanaynaa swap oo ah functionka magaciisa. Functionkan laba parameter ay muxuu ahaa qaadan kartaa oo ah integer oo lasii sheegay data type-kooda. labada parameterna ay kala qaadato waa x iyo y sida ujeednaba. x iyo y-dan marka function definition-ka waxa ay qabanaya markii functionkan calling-ka qiimaha a iyo b lasoo geliyo, a iyo b marka lasoo geliyo, x-ta waxa ay qabanee copy oo a-da qiimaheeda, y-dana waxa ay qabanee copy-ga b-da qiimaheeda. markaas ka bacdi waxay process gareyso waa ay ka madax banaan yihiin a iyo b. mar kale aan ku celiyo, markii la sameynayo qiimahan geli la dhaho a iyo b, qiimaha soo gelisid inta waxaa isticmaalaysaa function calling. function calling-kan waxa ay gudbinaysaa qiimo laba ah oo a qiimaheeda iyo b qiimaheeda. a iyo b qiimaheeda marka asalka ah ma gudbinaysa ee waxay copy u diraysaa x-kana waxay ku copy-yeynaya qiimaha a, b-dana waxay siinaya copy-ga b. inta markii la imaado waxaan qaadanay xaraf dheeraad ah ama character dheeraad ah. waxaan dhahnay z waxay la mid tahay x, qiimaha x waxay la mid tahay z oo waxaa lagu wareejiyey z. x qiimaheedana waxay ka qaadatay y oo qiimaha y waxaa lagu wareejiyey x, y qiimaheedana waxaa la siiyey qiimaha z. marka swapping aan dhacay. swapping maxay tahay? qiimihiyaa la isku wareejinaya, laba tiro in la isku wareejiyo la rabaa. swapping-ka marka la sameynayo laba tiro waxaa loo baahan yahay tiro saddexaad oo dhexdhexaad ka noqota, maadaama tusaalaba haddii aad soo qaadatid laba koob oo shaaxa markii aad rabtid inaad isku bedeshid shaaxa, waa inaad heshid koob saddexaad si aad koobka inta uga shubtid aad midka kale ugu wareejisid. markii laba tiro values aan isku bedelayno, midkii la rabo midkii qiimaha x in la siiyo qiimaha y qiimaheedana x la siiyo, waxaa la isticmaalaa character kale ama integer ama variable kale dheeraad ah. waxaana leenahay z waxay la mid tahay x, x qiimaheeda waxay la mid tahay y, y qiimaheeda x lagu soo wareejiyey, x qiimaheeda waxay ku reebtay z, intana waxay ka qaadatay y na waxay ka qaadanay z. marka muhiimadda maahan swapping-kan anaga aan sameynayna waxay tahay swapping-kan siduu u dhacayo. meeshan swapping-ka ah haddaan daabacno waxaan arkaynaa printf percentile d inta waxaa leenahay a waxa ay la mid tahay, intana waxaa aan dhahay inta a waxay la mid tahay, intana waa b a b. waxaan rabnaa function-kan in ay soo process gareyso isku wareejinta labada qiimo ay usoo celiso function-kan, mana dhaceyso. mar walbaba qiimaha a oo saxda ah originalka ah ayaa inta lagu daabici doonaa. laakiin haddii function-kan aad ku dhex daabacdid waxaa la daabici doonaa qiimihii la isku wareejiyey. aan kala fahanno, marka hore aan daabacno. waxaan leenahay programka run markii aan dhahno waxaa noo soo bixi doono in qiimo nala weydiiyo. qiimo geli, waxaan gelinaynaa tusaale ahaan 10 iyo 30. waxaa noo soo bixaysa a waxa ay la mid tahay 10, b-na waxa ay la mid tahay 30 oo ah sidii aan u gelinay 10 iyo 30 sidii aan u gelinay ayaa noo soo bixaysa. laakiin anaga waxaan rabnaa haddii aan 10 iyo 30 gelino in 30 uu hormaro 10 ay daba marto. hadda haddii aan daabacno printf-ka aan ku daabacno function-kan dhexdiisa, qiimahan aan ku kala bedelno x iyo y, ama aan dhahno qiimaha b iyo x iyo y waa sax, sababtoo ah function-kan dhexdiisa ku daabacayna. intana waxaan ku bedelaynaa x, y. hadda waxaa noo soo bixi doona qiimihii oo la isku bedelay. waxaan arkaynaa tusaale ahaan waxaan gelinaynaa 20 ama 10, waxa si tirada hore aan gelinaynaa 10 iyo 30. 10 iyo 30 markaan gelino waxaa la rabaa inay 30 ka soo hormarto. 10 iyo 30 waxaa noo soo hormaraysa sida arkaynaba 30 iyo 10 way kala hormarinaysaa, swapping ayay sameynaysaa. marka meesha inaa fahantay meesha la rabo oo maanta dhan aan ka hadlayno waxa ay tahay function-ka call markii lagu sameynayo laba qaab loo sameeyaa. call by value qaab la dhaho oo ah function definition-ka. waatan function definition-ka waxay qaadanaysaa copy-ga tirada function-ka ku jirta value function ku jirta function call-ka.
a iyo b qiimahooda saxda ah ma la qaadan laakiin waxaa la qaatay koobigooda qiimahooda la koobiyey x waxaa lagu koobiyey a b dan waxaa lagu koobiyey y swappingkana waxa uu ka dhex dhacay functionkan dhexdiisa wixii functionkan ka baxsan return haddii la dhaha xitaa laba tiro waa laba tiro wax ka badan ma celin karto markii laga hadlayo muxuu ahaa additionka ka hadlaynay subtractionka ka hadlaynay tiro waa celinayni laakiin waxaa celinayna hal tiro markii laba tiro la isku daro hal tiro ayaa celinayni intana waxaan sameynaynay waxay la mid tahay variable ayaa kale oo dheeraad ah ayaan ku keydinaynay laakiin maanta waxaa la rabaa laba tiro in la celiyo return x y haddaad tidhaahid programku wax uu celinayo ma lahan sababtoo ah meeshan waxaa la dhahaa one way communication labada function waxay sameynayaan one way communication oo ah functionkan inay interaction la sameyso hal mar kaliya oo ah qiimahan a iyo b koobigooda inay soo siiso iyadana ay koobigaas ku process garaysato haddii aad inta ku daabacdid a iyo b qiimahooda isma bedeleyso a iyo b sidoodii ahaanaysaa laakiin haddii aad ku daabacdid meeshan dhexdeeda qiimaha a iyo b waa la kala horumarin doonaa sida hadda aragtaba marka la yiri functionkan waxaa la dhahaa call by value allah markii nidaamka la sameynayo koobiga call by reference uu noo soo socdaa oo asagana saameyn weyn ka qaadan doona iyo farqiga u dhexeeya ayuu arki doonaa value-ga ku jiro function calling-ka waxaa la dhahaa mar walba argumentskaas ku jira waxaa la dhahaa formal arguments la dhahaa functionka definition-kiisana parameters ku jira waxaa meeshan waxaa la dhahaa actual waa actual arguments kana waxaa la dhahaa formal parameters sida ujeednaba x y daas waxaa la dhahaa formal parameters a e b dana waxaa la dhahaa actual arguments ama actual parameterska waxaa la dhahaa value ku jira function calling-ka functionka definition-kiisa variables ku jira waxaa la dhahaa formal parameterska mar walbaba marka copy waxay ka qaataan a e b daas call by value sababta loo dhaha waxay tahay a e b copygooda ayaa waxaa lagu shubaa x iyo y cashirkeena oo afartanaad waan uga hadlaynay maanta call by value meesha ayaan ku sameynaa wabillahi tawfiiq